بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة عنوان كيدو وحقوق النمو. الحقيقة maalintii aynu maqalay yuhuudda aqoonsatay Somalilan kama aanu hadlin. waxaan uga hadli waayey laba mas'alo findhicilku ma xaaraan baa mise waa xalaal xuskiisaaba daran. qodobka labaad aan uga hadli waayena waxay ahayd dowladda federaalka ah baan ogahay, koonfur baan xogogaal u ahay, war muqdishaa joogaa. labadaa mawduuc baan uga hadli waayey. kan yuhuudda waan idiin sheegayo in la soo qaadaaba xaaraana. kan halka ah waa degelay wax maqal, qorshe ma jirin. 22 sannadood afkaar siyaasiyi ma jirin, talo ma jirin, cid waxna weydiisaa ma jirin. ninkii halka laga bedelay ee muddaxileedkiisu 4 sano ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo waxbuu naga weydiin jiray. xasan sheekh cidna wax kama weydiin, mid xildhibaana wax kama weydiin, mid magaalada jooga wax kama weydiin. wuu isu bogay. ma maqasheen kelmadda la yidhaahdo waa isu bogay? wuu isu bogay. annaguna waa daawanaynay. xalqadahaygii horena waan ku sheegay in nuclear bam maalin maalmaha ka mida qarxi doono. ma aanay fahmin reer koonfureedku waxaan u jeeday, laakiin kuwa waqooyigu waa fahmeen. nuclearkiina waa qarxay. saaka xogogaal baana. maxaa koonfuray kuu qorshaysan? dowladda federaalkay maxaad afkaar haysaa? maxaad tala haysaa? maxaad wax gole lala tago haysaa? waana ogahay safarkii xasan sheekh maxamuud wadahadal waa jiraa. waxa maanta kubaddu ay ag taallaa waa koonfur. hadduu yahay waran leh, iyo hadduu yahay wadaad, iyo hadduu yahay siyaasi, iyo hadduu yahay wasiir, iyo hadduu yahay prime minister, iyo hadduu yahay madaxweynaha, iyo hadduu shaydaan yahay. wixii tala anigu aan hayo halka ka sheegi maayo, laakiin ujeeddada xalqadani waxay tahay inaan ku baraarujiyo dowladda federaalka iyo hawiyaba inaad diyaarsataan talo daantatii aad la aamusnaydeen. feker daamakii aad mar hore weydeen. waxaan markaa aan kula talinayaa dowladda, dadka ku jira labada golena ha loo yeedho. dadka ahlulcaqli walcaqdi ee magaalada jigana ha loo yeedho. waxbaanu markaa ku biirin doonaa hadday noo yeedhaan.
hadday noo yeedhi waayaanna ha isku fillaadeen laakiin rajaa jirta dadweynow rajo way jirtaa rajadaasi cidda ay ku xidhan tahay ee aad rabtaan inaad u sheegtaan waa nimana kan habaarka qaba ee dawladdan ah ee aan cid la tashanayn ee aan waxba maqlayn ee daadku soo galay ولي قضب كائنتاس أيام كلها فيا الحقيقة سومالي لان وحان لايه استيجية واقع ميس كيالنا أين نقول له حنو tala caafimaad qabta oo nabad ana la imaada wax allaale iyo wax yahuudi ina tarayso garan maayo aan ahayn dagaal afrika loo soo raray oo ayna maanta taagu hayn qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa labada gole ee reer waqooyi kaga jira allihiin hadduu alla yahay shir isugu kaalaya wixii aad tala bidaysaanna u yeedha waxaad arrin bidaysaan u yeedha waxaad feker bidaysaan u yeedha wax la garan karo xasan sheekha loo geeyo hadduu diido eedi inama saara qof kalena ma saara qof soomaaliyana ma saara qof ilaahay yaqaanana ma saara dadaala qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa waar ma jirto afkaar siyaasi ah ma jirto fikir siyaasi ah ma jirto rabitaan siyaasi ah ma jirto daacadnimo war meesha koonfur la yidhaahdaa waa waraaba galeen waxay mahadiyeen mar haddaad caasimaddii haysataan dhaqaalihiina ku soo shubmayo qofna ha u joojinina qofna ha ixtiraaminina qofna ha xaqdhowrinnina 25 sannadood waxaan wax ku gartaa waa igu filan yihiin ee aan ka arkay الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب